السلام عليكم وأنا سلام صاحبي المال كستو أدنو ذاك جوكتان waxaan rajeynayaa inaad caafimaad qabtaan insha Allah hooyo macaan naxariisteeda iyo jacaylka ay siiso ilmaheeda xaalad walba ay ku sugan yihiin ma ahan wax la soo koobi karo abaalkeedana ma ahan mid aan gudi karno si kasta oo aan ugu dadaalno kaliya waxaan la gudboon inaan baari u noqono wax dhibana ka ilaalino hooyo macaan xaq uma lahan in indha kale lagu eego xaq uma lahan in hadal lagu celiyo xaq uma lahan in la murmo subhanallah in loo turo oo loo duceeyo ay xaq u leedahay Allah subhanahu wa ta'ala ayaa quraankiisa ku yiri rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira ilaahu ugu naxariiso sida ay yaraanteeni noogu tureen waxaan maanta ka hadlaynaa qiso hooyo wiilkeeda dartiis nafteeda halis u gelisay oo ka dhacday mid kamid ah dalalka Carbeed ku soo dhawaada mowduuceena maanta inta aan qisadan gudaha u gelin qisadan waxaan ka soo xigtay Dr. Sheikh Hassan Jaamici xafidahullah hooyadan iyo saygeeda oo muddo dheer isqabay ayaan Allah subhanahu wa ta'ala wax u badaasiin isbitaal walba oo ay tageen ayaa waxba looga qaban waayay ugu dambeyn waxa lagu la taliyay inay Allah subhanahu wa ta'ala tala saartaan oo ay ducada iyo dhigriga Allah kaalmaystaan waxa ay hooyadan go'aansatay inay Allah subhanahu wa ta'ala si toos ah ugu xirnaato maadaama uu isaga yahay kan bixiya ubadka mar walba xuska Allah ay ku dadaali jirtay gaar ahaan dhigrigan la ilaaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir muddo kadib hooyadii waxa ay qaaday uur Allahu akbar qoyskii farxad ayaa dabooshay ilaahay awoodiisa ayaana qof walba farxad gelisay waana ay ku mahdiyeen Allah subhanahu wa ta'ala waxa la gaaray maalintii foosha dhammaan reerkana waa ay wada joogaan oo waxa la sugayaa farxadda ilmaha yar ee dhalan doono umulisadii markii ay hawsheedii dhameysatay ayaa ay ilmihii oo caafimaad qaba inta ay soo qabatay ugu bishaaraysay hooyadii iyo qoyskii kale waxa ayna ku tiri alxamdulillah ilaahay waxa uu idin siiyay ilmo nool waana wiil hooyadii aad ayay u faraxday laakiin umulisadii oo hadalkeeda wadatay ayaa tiri waxaan kaloo idin sheegayaa in wiilka uusan dhaga lahayn yacni muuqaalka dhagaha ma lahan laakiin markii la tijaabiyay dareenkiisa maqalka waa u fiicnaa hooyadii oo markii ay maqashay in wiilkeeda uusan dhaga lahayn aad u naxday ayaa haddana Allah u noqotay oo wiilkii yara laabta gelisay isla markaana tiri alxamdulillah ilaahu raali ayaan ka ahay hooyo macaan waxa ay bilowday inay cunugeeda si fiican ugu dadaasho maadaama kaligiisa ay ka haysato wiilkii 3 jir markuu gaaray hooyo waxa ay geysay xanaano ama college maadaama wiilkan uusan dhaga lahayn caruurta college la dhigata ayaa ku ceen jiray dhaga la'aanta marka uu ka yimaado college-ka ayaa isaga oo ooynaya albaabka ka soo gala hooyo macaan ayaa inta ay laabta geliso ku dhihi jirtay maxaa kugu dhacay wiilkayga quruxda badnaayo markaas uu ku leeyahay hooyo macaan ilmaha fasalka ila dhigta waxa ay mar walba ay dhahaan bahal ayuu u eg yahay hooyadii inta ay ilinta ka tirto ayaa waxay dhahdaa wiilkaygiyo wax ka qurux badan ma jiraan wax ka akhlaaq fiican ma lahan wax ka fiicanna ma lahan mar walbana erayadaas ijaabiga ama positive ka ah ee wanaagsan ayay ku dhihi jirtay wiilkii waxa uu noqday ardayga ugu fiican fasalka wiil caqli badan oo haddana xigmad badan ayuu noqday wiilkii markii uu yara weynaaday waxa uu bilaabay inuu qaato koofiyad dhagaha u daboolayso si aan loo arag sidaas ayuu dugsiga sare kaga baxay oo uu ku dhameeyay jaamacada ayuuna galay hooyadii oo mar walba wiilkeeda u duceyn jirtay ayaa markan bilowday inay raadiso dhaqaatiirta dhagaha ku takhasusay si haddii wax looga qaban karo wiilkeeda ay u ogaato waxa ay la kulantay dhakhtar qaliimada dhagaha ku xeel dheer waxa ayna u sheegtay xaaladda wiilkeeda iyadoo weydiisay inay macquul tahay in wiilkeeda dhago loo beeri karo dhakhtarkii ayaa ugu jawaabay haa waa macquul ilaahay idinkiis laakiin waxa loo baahan yahay qof 3 sifo leh tan koowaad qof ay isku dhig yihiin tan labaad qof ay isku hilib yihiin oo qaraabo dhow la ah iyo tan saddexaad qof ay isku midab yihiin si midabka wiilka iyo dhagaha aysan u kala dunaan hooyadii oo aad ugu faraxday jawaabta dhakhtarka ayaa ku tiri waan soo raadinayaa qofka sifooyinkaas leh wayna ka soo tagtay maalmo kadib dhakhtarkii ayay ku soo laabatay waxayna ku tiri qof ayaan soo helay laakiin qofkaas 3 shuruud ayuu wataa shuruudda koowaad in aadan wiilkayga u sheegin qofkaas oo markaad dhagaha ka jarto aad qariso shuruudda labaad qofkaas wax lacag ma qaadanayo iyo shuruudda saddexaad oo ah in qofkaas iyo qoyska uu wiilka ka dhashay waa inaga aan dib dambe la isugu soo noqonaynin oo aan dib la isku arkayn dhakhtarkii ayaa hooyada ka aqbalay shuruudihii hooyadii oo farxad meel ay isgeysala ayaa wiilkeeda u timid uguna bishaaraysay arrinta farxadda leh
ee ah in dhego lagu beeri doono. Wiilkii isagana aad ayuu u farxay, laakiin hooyadii ayaa ku tiri, wiilkaygiiyow, qofka dhagaha kugu deeqay waxa uu wataa 3 shardi, waana ku qasbannahay inaan shuruudahaas buuxino. Shuruudda koowaad, qofkaas ma rabo annaga in aan aragno. Shuruudda labaad, lacag in la siiyana ma rabo, Ilaahay dartiis ayuuna u baxsaday dhagahan. Shuruudda saddexaad, mustaqbalka in laysku soo noqdana ma rabo. Wiilkii ayay ku adkaatay shuruudihii, waxa uuna hooyadiis ku yidhi, hooyo, qofka intaas oo wanaaga ii samaynayo inaan arki waayo, u mahadcelin waayo, abaalmarina waayo wax macquula maaha. Ugu dambayn, hooyadii wiilkeeda waa ay ku qancisay inuu ogolaado, dhagihii ayaana lagu beeray. Wiilkii oo markiisii horeba Ilaahay qurux iyo aqoon siiyey ayaa operationkan ka sii qaaday qurux kale iyo kalsooni dhammaystiran. Waxa uuna ka raystay iska qarinta dadka kale. Jaamacaddii ayuu dhameeyey. Wiilkii waxa uu noqday ganacsade dhaqaale fiican haysta. Maalin maalmaha ka mid ah ayuu hooyadii u yimid. Waxa uuna ku yidhi, hooyo, aniga maanta go'aan ayaan gaaray. Waxaan haystaa dhaqaale igu filan, alxamdulillaah. Quruxda iga muuqatana adiga, aabe iyo qofkii dhagaha igu deeqay ayaa sabab u ah, Allah ka sokow. Hooyo, waxaan go'aansaday in qofka dhagaha igu deeqay aan maalin arko, waana igu ballan in qof kale uusan arkaynin. Waxaan ugu talagalay hadiyad weyn, adiga iyo aabbana sidoo kale hadiyado ayaan idinkugu talagalay. Hooyadii waa ay ka diiday, waxayna ku tiri, wiilkaygiiyo sidaan hore kugu sheegay, qofkaas ma ogola inaan aragno, ee hooyo iska dhaaf. Wiilkii ayaa hooyadiis lugaha qabsaday kuna ooyey oo ka baryay in hal mar qofkaas ay la kulan siiso si uu ugu abaalgudo. Ugu dambayn, hooyadii ayaa ka ogolaatay, maalin ayayna u sheegtay inay u ballaminayso. Wiilkii aad ayuu u farxay. Waxa uu bilaabay in saddexdooda, waa hooyo, aabe iyo qofkii dhagaha ugu deeqay, hadiyada ay ku farxaan uu u diyaariyo. Gaarigiisa ayuu qaatay, suuqa ayuuna aaday. Hooyo dahab tiro badan ayuu u soo iibiyey. Aabbana hadiyado noocyo badan ayuu u keenay. Qofkii dhagaha ugu deeqayna hadiyad lacag ah oo aad u badan, inkastoo aan cadadkeeda la sheegin, ayuu ugu talagalay. Maalintii ballanta ayaa la gaaray. Gurigii ayuu yimid isagoo faraxsan. Hooyo ayuuna ku yidhi, hooyo, hadiyadihii waan diyaariyey, ee aaway qofkii. Hooyadii ayaa ku tiri, qofka waxaad arkaysaa markaad hooyo oo wax walba ka sarraysa aad hadiyadeeda siiso. Wiilkii ayaa ka ogolaaday, waxaana uu bilaabay in uu hadiyaddii hooyo uu ugu talagalay soo qaado, gacantiisana ugu xiro. Lugaha ayuu ka soo bilaabay, waana uu u xiray. Jijimihii gacmaha ayuu ku xijiyey, kadibna katiinadii qoorta ayuu u xiray. Ugu dambayn, dahabkii dhagaha lagu xiraayay ayuu soo qabtay. Waxa uuna ku yidhi, hooyo, dhagaha ayaa ii haray, qamaarka iska qaad, aan kuu xire. Halkan waaye meesha ay cajaa'ibta ka dhacday. Hooyo macaan, haddii ay qamaarkii iska qaaday, wax dhaga ah kuma yaalaan, oo iyada ayay ahayd qofkii dhagaha u jaray wiilkeeda. Allahu akbar. Allow hooyooyinkan u naxariiso, abaalkoodana janno ka yeel. Aamiin yaa Rabb. Walaalayaal, mawduuceena maanta halkaas ayuu noogu egyahay. Wassalaamu calaykum.